halkan sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno walaalkeen Maxamed Kaynaan Xirsi oo nooga yimid all the way from Africa. Maxamed waxa igu dambeysay 14 sano ka hor marka aad bay farxad igu tahay inaan walaalkay maanta halkan Melbourne ku soo dhaweeyo farxad gaarana waa noo dambaysa hadduu Ilaahay yiraahdo yimid good insha Allah walaalkay soo dhawow after long trip insha Allah maqan 20 hours meelaas 20 hours kid markii insha Allah soo dhawow waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa saaxiibada qaaliga ah invitation kan maartay sida quick ah the last 24 hours maartay maxay uga soo ajiibteen inaad maartay caawa halkan aan maartay aan iskugu nimaadno si aan maartay ugu soo dhaweeyno walaalkeen Maxamed Kaynaan Xirsi oo ah saaxiib aad iyo aad qaali u ah dhinaca Soomaalida oo dhan gaar ahaan myself Maxamed waxaan isnaqiinay muddo 15 sano iyo ka badan marka Maxamed wuxuu u yimid halkan arrimo family annagoo marka ka faa'iideysanayno waqtiga uu joogo inaan maartay caawa la cashayno ku soo dhaweeyno magaaladan Melbourne oo maartay maxay ahayd aad igula soo dhaweysaan marka runtii aad bay farxad iigu tahay inaan maartay walaalkay aan mar labaad iyo mar saddexaadba aan maartay aan ku soo dhaweyno halkan marka insha Allah maartay maxay ahayd waxaan rabaa inaan ku wareejiyo gudoomiyaha ka horna waxaan rabaa inaan awees laba eray oo asagana maartay maxay ahayd ka yiraahdo marka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaa sharaf iyo qadarin maanta caawa inaan soo dhaweyno xafladan yar oo cashadaas kugu nimid walaalkeena Kaynaan waxaa u sababa ninkii la yiraahdo Toho oo saaxiibkeyga ah runtii waa wax lagu farxo Soomaalidu waxay tiraa wajiga waa ugu yaalaa Kaynaan waxaan ka mid ahayn aasaashayaashii Somali diaspora 2014 kan u malaynaa hadday aan iloogin Istanbul aan iskugu nimid walaalkay soo dhawow Melbourne ku soo dhawow Melbourne waa magaalo madaxda gobolka Victoria waa magaalo runtii Soomaali markii la yiraahdo Soomaalidu badankoodu waxay degan yihiin gobolkan Victoria wayna degan yihiin gobolada kale sida Sydney ama mataqaana Brisbane ama Perth waxaa lagu qiyaasaa tirada Soomaalidu 15,000 ilaa 20,000 ayaa lagu qiyaasaa nooc kastaad ka heli kartaa ganacsataa ku jiro taksiileyaa ku jiro kuwa warshado ka shaqeeyaa ku jiro kuwa arday ah ku jiro kuwa jaamacada wax ka dhigaa ku jiraan way iskuul jiraan Soomaalidu meeshan waxay ku fiican tahay markii qof dibadda noogu yimaado qabiil lagu soo dhaweeyo Soomaalinimo lagu soo dhaweeyaa marka waa gacmo furan ku soo dhawaanaysa wadankan waa wadankaagi waxa tahay mataqaan qof anaga naga mid ah sharaf weyn noo tahay inaad mataqaan aad soo booqatid waxaan jecelnahay mar kale inaad ugu soo noqotid insha Allah adiguna meesha joogtid badana waa imaanaa Nairobi waa kugu soo booqan doonaa Ilaahay haduu yiraahdo waxaan ku rajaynayaa intii yaro aad joogtid inaad mataqaan aad magaalada wixii aad u baahatid diyaar aan u nahay inaan ku qabanno kusoo dhawow magaalada Melbourne walaalkay jazakallahu khair. Bismillahir Rahmanir Rahim mar hadduu awees hadlay in laga dawa hadlo ma baahanbo waa oday magaalada malaaq wax kasto isku yahay xawaaye waa mentorkaygu waay marka gadaashiisa laga hadlo ma baahanbo laakiin Maxamed Kaynaan waxaan ku leenahay kusoo dhawow Australia xawaaye gacmo furan waxaad u timid waan la soconaa insha Allah kadibna waad joogi doontaa wala arki doonaa inta yar oo joogis isbuuciga طبعا عشوا عينا قطبة سكالو جارا الوار كدونا هدو إلهي كلا نقضوا مركا وحن كله كسود هو مقالة ده مركا أنت أسعى وقبع عنك سيجارة وحن ماذا شان قروح بدن نسليه محمد Kaynaan إنه معركة كسود وينه
soo dhoweynta cashada iyo imaatinka uu runtii Australia markii u horeysayna ay tahay iyo barnaamijka uu yimid laftigiisa moment muhiim ah oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Keenaan inaad halkaan noogu timaadid oo nagu soo boqoto waxaan sidoo kale mahad iyo bogaadin aad u balaaran u gudbinayaa Axmed Tooxow oo inoo fududeeyay xafladatan caawa inay inoo qabsoonto anoo ka faa'iideysanaya imaanshaha inoo timid iyo halka kan aan wada joogno waa lagaga warbixiyay macnaha bulshada Soomaaliyeed ee halkaan ku dhaqan dadka hadda halkaan fadhiya waxay u badan yihiin dadka elite-ka magaalada u badan yihiin waxaan jeclaan lahayn walow dadkoo dhan iska warqabaan oo adduunku hadda xaafad uu noqday misana inaad haddaad wax nooga warrami kartid what are the challenges and what are the opportunities macnaha Soomaaliya haddaan nahay dadka diasporada halkaan ku nool maxaan ka geysan karnaa in xaaladda hadda waddanku ku sugan yahay in hore looga dhaqaajiyo haddaan dhib ku hayno maxaan ka dayn karnaa haddaan dhib ku hayno maxaan ka dayn karnaa haddaan rabno inuu waddanka contribution aan ka geysan karnaa waxaan marka hore rabaa inaan soo dhaweyno walaalkeen Maxamed Keenaan oo marti inoogu ah magaaladan Melbourne marka soo dhawow kulay dadka magaaladan dadka ugu akhyaarsana ayaa halkan jooga information fara badan hadda intii yar xoogaa baan sheekaysanayo arrimaha SSF-ta ee Soomaaliya iyo sida aad u caawisaan iyo waxyaabo fara badan ayaad runtii inooga sheekaysay aadaan u jeclaan lahaa in dadka halkan jooga inaad informationkaas iyo aad runtii aad siisid Keenaan waxaa waaye shakhsi Soomaali oo dhab ah waxaan aad ugu faraxsanahay warbixintiisa shaqada uu qabto iyo maanta heerka uu gaarsiisan yahay waa nin lagu tilmaami karo maanta haddii shakhsi Soomaali uu jiro oo ammaanada xafidi karo inuu yahay nin ammaanada xafidi wayna ku yartahay Soomaalidu marka waxaan ku rajaynayaa guul barwaaqo inaad sida hadda aad ku socotid inaad waxba iska ka bedelin ayaan kugu duceynaya jazakallahu khayr mahadsantihiin Axmed aad iyo aadan kaaga mahadcelinaya akhyaarta dhamaantiina waa idin salaamaya iyo malaaqa marka inta marka dhamaantiin waa mahadsantihiin akhyaarta dhamaantiin waa mahadsantihiin horta casha soo dhow marka kulli cashada kadib aan si fiican u soo wareysan doonaa aniga inaan magaalada idinku imaadana aadaan ugu faraxsanahay marka si goonaan u wada hadli doonaa hadda warka idinku badan maayo waana ku mahadsantihiin dhammaan waqtigiina aad soo hurteen waxa ugu wanaagsan oo qof la siiyo waa waqtigaaga marka waqtigiina idinka mahadcelinayaa waddanka waxaan ogahay in wax badan aysan idinka maqneen oo dad Soomaali oo adduunka ka tarinaatiin laakiin intaan maaragtay ana hayo oo aad muuqintiin insha Allah iska wareysan